السلام عليكم waxaa laga yaabaa baryahan inaad aragteen live aan soo gelinayay oo ku saabsanaa abtirsiga Soomaaliyeed iyo Soomaali ahna dad badan baan rabaa inay ka faa'iideystaan oo ummadda Soomaaliyeed ku rabaan inay mareen habaabiyaan kana dhigaan inaan ugu ahay cadow ku ah ummadda Soomaaliyeed oo kala qaybinayana never dadka yaqoonu ogaada inaan ugu ahay qof ee Soomaalinimadu ku weyn tahay oo wali bana aaminsan inaanu dad isku wada meel ka soo jeedno isku isirnahnina dadka marin habaabinaya waa dad anigu aan u aqaan inay yihiin dad meelaha kale ka soo jeeda oo ku dhuumta raxanka weyn iyo magaalooyinka Reexamar baanahay Banaadir baanahay laakiinse abtirsi lahayn tan kaga duwanaya waxa weeye ku abtirsi ma lahana ama hadii leeyihiin way qarsadaan way markaas waxa fashilmaysa inaysan ahayn dad aad isku dad tihiina wadankan adigu aad san keensan qaar badan ku yimaadeen xilligii guumeysiga xilligii adoonsiga iyo xilligii dagaalada lagu la jiray Portugiiska oo meesha lagu beerayba marnaba dadkan meesha kula jooga ma aha dad adigu aad keensantay magaalooyinkan lagu abtirsanayana marka aan u guda galay on tooshka ku ifinay waxa la yiri ninkii magaalooyinkii buu ku bilaawayba ice waa loo baahan Soomaaliya laga sameeyo waliba gaar ahaan waxa loo baahan si degdeg ah in loo sameeyo waa Soomaaliya way qarxaysaa al-shabaab ka shaqeysta dahab baa la gurtaa caruurta kaliyahooda la xadaa caruurta dhan baa la xadaa dumarkii baa laga meesha maxal laha tahriib lagu khiyaamadeeyaa islaamiga dahabka laga xadayaa aqoonta khaldan baa maskaxda dadka lagu buufinayaa marka ice-ka Mareykanka ana kaaba uga baahanba hadii anigu aan ka qayb noqday qolooyinka ice ee Soomaaliya tooshka ku ifisay I am proud waliba hadii la leeyahay ninkan cunsuri weeye shaarbaan la baxayaa waliba taa ogaada marna ba aniga lagama dhaadhicin karo qofka haduu dalkiisa iyo wadankiisa dadkiisa u damqado inuu yahay cunsuri taas oo markay qofka wadankiisa difaacaya qofka kaliya ku tilmaamo waa cunsuri waa qof ajnabiya waa qof dulmiga geysanaya oo dadkaas u diidan inuu qof ka soo dhex tooso dhahoba war hooy naga joojiya dulmiga nagu diina aniga waxaan noqonayaa qofkaas ee ku tilmaamaya cunsuriga aniga oo difaacaya qadiyad Soomaalinimo iyo isirnimo iyo inaanu nahay dad anaku isku naxariisan karna laakiin se khashriye gudaafad ugu dhex dhoomanayaan raxanka weyn waxa weeye musalsalada ugu dambeeyay hadda aan soo deynay baryahan live-ka oo lahaa halis buu ku yahay ummadda Soomaaliyeed waxaan arki kartaa markay noqoto isirnimada Soomaaliyeed marka laga sheekeynayo taariikhda Sooyaalka Soomaaliyeed inay qolooyin cadcada ajaaniba jareer iyo raxaweyn isku bahaystaan iyagu ee dhahaan wax isir Soomaaliya ma jiro iyo taariikh Soomaaliyeed ma jirtaba waayo waxa iyagu ka dhaadhicinayaan ummadda inay yihiin dad Banaadiriya ee yihiin dadkii asalka Soomaaliya iska lahaa inay yihiin dad jareer dadkii Soomaaliya lagu yimi inay yihiin raxaweyn dadkii dhulka lagu dhibaateeyay oo iyagu iska leeyihiin waayo markaad si ugu gashi Soomaalidu jareer ma ahna kala dad baan anaku jareer ma nihin markaad eegtina xataa dadkan magaalooyinkeena ku abtirsada oo bila abtirsiga ah ama hadii xitaa leeyihiin qarsanaya si ay u fashilmeen inay kala dad yihiin oo yakuna Soomaali ahayn Banaadirtaas iyo magaalooyinkaas ayay ku sheegtaan waxayna difaacaan jareertaas si ay isu bahaystaan raxaweentana waxa loo difaaca wax kale ma aha waxa weeye waa ururkii ugu dambeeyay loo aasaasay oo wali bana cid allaale qufulkeedii furaheedii haysa maanta ma jirto hadii markii hore ajuuraan ee aasaastay ma sha Allah boqortooyada ajuuraan isku keentay ee tirin reer walbo Soomaaliya ku soo darsadaan raggoodii ciidankooda meeshan si aan ula dagaaltano Portugiiski oo hadhoona meesha loo wada shaqeysto oo isku kalsoon isku yeelano war wanaagsan buu ahaa laakiinse gadaasheed cid dabooshay ama burburisan meesan jirin waxa gadaal kaga soo biray dad fara badan oo Soomaali ahayn waxaad arkaysaa Yemen ku dhex dhoomanaya meesha Kurdi ku dhex dhoomanaya al-shabaab ku dhex dhoomanaya